hore salaanta islaamka nagu salaamaya maanta waxaan iskugu nimidnay xaflad oo inoogu mahadnaqayo musharaxeennii barkhad een taageernay oo guuleystay halkan waxa iga soo horjeedo oon aad u jecelahay oon hadalladiisii sii xasuusanahay oo waxyaabahan Soomaaliland u imiday ee u soo degdegay kamid ahaa hadalkii Dr. Gaboose markuu barkhad ula hadlayay reer Soomaaliland uu lahaa doorashada maanta waa barkhad waxa laga yeelo ayay dunidu eeganaysaa barkhad markaan anigu shakhsiyan Aamina Faarax ahaan isku noqdo anagu barkhad aqoon hore iskumaanu lahayn habeen baan daawaday telefishinkayga Djibouti barkhad oo hadlaya ka hadlaya tacliintiisa wuxuu soo bartay iyo inuu musharax yahay codoonaya marka aniga waxa ay galay maadaama aan gabadh fanaanada ahay dadka fanaaniintu waxay u badan yihiin waa dad iska hadiga jeer markay wax arkaan iska qiirooda iska qalbi wanaagsan marka halka waxaan ka qaatay inaan walaalkay barkhad inaan idada oo hay heeso soo sameeyaa anigu heestii waan u soo sameeyay sidaa kaga hadhi maayo barkhad waxa weeyaan aniga musharaxayga ee fadhiya golaha baarlamaanka ee fadhiyo weeyaan waa harka anigu han harsan doono weeyaan adoy geeridu nadayso xagga ilaahay ka helo waxaan ballan ugu qaadayaa markasta inaan taageero barkhad aan garab joogsado barkhad heesta dadkeenu waxay u yaqaaniin inay waxyaabo kale oo foolfoolxun ku hoos jiraan laakiin heesta waxyaabo badan bay gashaa wala isku guubaabiyaa waxyaabaha fiican baa la iskugu sheegaa xagga xumaanta in laga eego maaha waa in dhanka fiicanna laga joogsado barkhad waa qof dareenkiisu xoog iigu jiro uu dhex socdo maskaxdayda moraalkayga oo dhan inta wax dareentaba barkhad qof loobi kara marnaba maaha anigu waxaan ahay qof inan gabadh reer Djibouti iyo Soomaaliland waxa ma kala dheera laakiin markasta oo la yiraahdo barkhad wax buu leeyahayba anagu waxaan noqonayaa dadka u horeeya cod haday taageero noqoto si kastiba u garab taagan baan ahay barkhad waxa kale oo salaami doonaa dadkii kale ee barkhad soo wada ag joogsaday waxaan salaamid intii u heelisay ee barkhad codkiisa ka dhigtay dubul ka dhigtay ayaan aad u salaamayaa hargeysa dadka degan oo dhan baan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland baan salaamayaa Muuse Biixi dhamaantood hadalka anigu dumar baan ahay marka heesta baan xariifadahay waanigeeni lahaa raalli baad ahaanaysiin waa jacaylada barkhad baan u hadlayaa maantana in guusha barkhad intan ku dhamaan mayso ayaama kale oo badan baan iskugu imanaynaa oo ciyaaraynaa oo heesaynaa heeso cusub markaana inuu heesi oo barkhad u sameeyo guula waa sida ay tahay waxaad ogaatiin markasta aanu Aamina Faarax wabar baan ahay waxaan walaalanahay suldaankii Soomaaliland yar qasi jiray waxaad ogaatiin inaan anigu markasta barkhad garab taaganahay uu yahay xildhibaankayga golaha baarlamaanka ee fadhiya aniga waa barkhad sida ay ogaada meel kasta ay Soomaaliya joogtaan salaamaya aad waxaan u salaamayaa xildhibaankayga batuun يا الله حلك الله فوق أسترو أنا وذا سلامي